Waa tuma gabadha tiktoklayda ah ee hilibka doofaarka bisinka u qabatay ee lagu xukumay 2 sano oo xadhig ah. Halkani waa deeqsame iyo anigoo ah Ahmed Xasan. Maxkamad ku taala dalka Indonesia ayaa 2 sano oo xadhig ah ku xukuntay haweeney soo bandhigtay muuqaalka TikTok oo ay ku dhawaaqaysay kelmad Islaami ka hor inta aysan cunin hilibka doofaarka. Muuqaalkan haweeneydan ayaa sidoo weyn loogu faafiyey baraha bulshada. Lena Lutfiyafati oo 3 jir ah ayaa lagu helay dembi ah in ay kicisay shucuur diimeed iyo kicin dhaqan nacayb. Lena ayaa sidoo kale lagu ganaaxay lacag dhan $16,000 taasoo ka bixi weysa in xukunkeeda lagu kordhiyo 3 bilood oo kale. Kiiskan ayaa ah kii ugu dambeeyey kisas taxane ahaa oo la xiriira aflagaado loo geysto diinta taasi oo muran ka dhex dhaliyey Indonesia oo ay ku badan yihiin Muslimiinta. Lena Lutfiyafati oo magaceeda u bixisay Lena Mukherjee jacaylkeeda iyo ku xidhnaanta filimada Bollywoodka awgeed oo ay taageerto Kajol Mukherjee iyo Rani Mukherjee. Gabadhan ayaa asal ahaan Muslimada. Muslimiinta ayaa waxaa gebi ahaanba xaaraan ka ah cunista hilibka doofaarku. Lena Lutfiyafati ayaa waxaa ku xiran barteeda TikTok ku in ka badan 2 milyan oo taageerayaal ah, waxayna sidoo kale ganacsi ku leedahay Hindiya. Bishii March, Lena waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku dhawaaqayso Bismillah ka hor inta aanay cunin hilib doofaar ah oo qalalan. Bismillah, lupa. Guys. Waqtigaas, Lena waxay u safraysay Bali. Bali waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee Indonesia, taas oo ka duwan dalka intiisa kale ayna ku badan yihiin bulshada Hindu. Lena Lutfiyafati ayaa sheegtay in ay xiiso ay u qabtay darteed ay isugu dayday hilibka doofaarka. Muuqaalkeeda ayaa waxaa daawaday malaayiin qof waxa uuna noqday muuqaal si weyn loo dhaleeceeyey. Kadib markii uu muuqaalku soo baxay, qof kale oo u dhashay Indonesia ayaa dacwad u gudbiyey booliiska isaga oo ku eedeeyey inay si ula kac ah u cuntay hilibka doofaarka iyada oo ah qof Muslim ah. Booliiska ayaa bishii May Lena Lutfiyafati ku eedeeyey inay faafisay waxyaabo sababaya nacayb diimeed. Kooxo dhowr ah oo muxaafid ah ayaa sidoo kale soo saaray amaro iyaga oo ku tilmaamay muuqaalka Lena mid meel ka dhac ku ah diinta Islaamka. Waxaa ka mid ah golaha culimada Islaamka ee Indonesia. Falcelinta ka dhalatay xariga Lena ee baraha bulshada ee Indonesia ayaa ilaa hadda ah kuwo ku kala qaybsan. Qaar badan ayaa ammaanay garsooraha waxayna ku tilmaameen ficilka Lena mid bahdila. Dhanka kale, xabsiga Lena Lutfiyafati ayaa waxaa dhaleeceeyey qaar ka mid ah kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Hay-adaha xuquuqul insaanka iyo dadka u ololeeya ee dalkaasi Indonesia ayaa muddo dheer dhaleeceeyey sharciyada lagu xukumo dadka diinta u gefa, iyaga oo sheegay in inta badan si khaldan loo isticmaalo in lagu beegsado dadka haysta diimaha laga tirada badan yahay. Booliiska Indonesia ayaa xiray 6 qof sanadkii hore kadib markii baar lagu xayeysiiyo khamriga loo bixiyey magaca Maxamed. Sanadkii 2017, guddoomiyihii hore ee Jakarta Basuki Cahayapurnama ayaa lagu xukumay xabsi ku dhowaad 2 sano ah kadib hadallo la sheegay in lagu aflagaadeeyey diinta Islaamka. Dalka Indonesia waa waddanka ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu tirada badan caalamka. Dalkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku yaalla jasiiradaha ugu badan caalamka halkaasi oo loo dalxiis tago.